wixii rabbi ku siiyay ama ha yaraada ama ha badnaadee laguma siinin in lagu jecel yahay ee waxa lagu siiyay in lagu imtixaano kan lagu yareeyayna waxa loo siiyay loogu yareeyay bal inuu sabra la fiirinaya kan lagu badiyayna ee loo waasiciyayna waxa la fiirinaya oo lagu imtixaanay bal inuu shukriya la fiirinaya الله تبارك وتعالى معناها سو قرآن كي ينوغو الشيء النبي قلنا السنة دي سكفها فهي صلوات ربي والسلام عليه لكن إنسان كي عقلي يريد فهم حمدي سيدا سكة قد سنبه فهمي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه إن آدمه مركو إلهي امتحانه وأو كراميه وأو نعميه وأو وحوال بسيه وحو الربيسيه هلو وحولي ربي أكرمن ربي جيبا إكرامي والله دورتي دورنا أهاي تدك وانكسيتا وفانتميا وكبريا الله وحده تبارك وتعالى آدمه هدي له امتحانه رزقنا اللي وعليليو أسقنا وحوليه هاي ربي جي وإهانيستي وإنعي واللي دليي على علبك بحيا الله وحده تبارك وتعالى كلا ساس معها ساد مودين معها warkan wax la siiyay oo nawaad imtixaanan tahay ma aha in lagu doortay warkan la qadiye lagu yareeyay lagu celiyo ma aha in lagu nacay arintu saas ma aha waa ibtilaa iyo imtixaan sida u fahan marka adigoo fahmay inaad imtixaanan tahay waajibkaagu wuxuu yahay marka wixii ilaahay uu kugu keenay ee musiibo ana ku sabir wixii ilaahay ku siiyay ee wanaagana ka shukri raali ku noqo